taqaana Aisha radiyallahu anha tu dadka ugu jeclaa ayuu nabigu horta u bandhigay wuxuu Aisha soo fadhiisa halka buudi way fadhiisatay waa marka dhowr iyo 20 cisho waxa laga yaabaa inaan la isla hadalba oo la kala aamusan yahay oo dumarkii nabiga yaab ka dhamaaday oo magaaladii Madiina la yaaban yahay marka buu Aisha kala aayadaha baa dusheeda ku soo degay go'aan qaadashadana ha ku degdegin buu ka fiirso inay yar baa tahay abaha Abu Bakar iyo hooyada way nool yihiin u tago ayaka marka kala soo tashabuuri waxaad yeelaysid marka bay tiri bal aayadaha horta dusheeda ku akhribay tiri markaasuu nabigu ku dul akhriyay labada aayadood dadna nabigu kaleey salaatu wasalaam uu farxay marka uu ka kacaayay ila kuwii kalena waa inuu u sheegay mid walba uu yiraahdo aayadaha ba soo degay kala doorta ayaa Aisha marka ku tiri nabi Allah khiyaarkayga anigu aan doortay adiga iyo Ilaahay iyo aakhiro xaasaskaaga midba hayga sheegin bay ku tiri waxaad moodaa maseer baa ku jira halkaas marka buu nabigu ku yiri wallahi buu haday anu kaaga sheegi maayo go'aankaad aad qaadatay laakiin haddii ay yiraahdaan Aisha maxay dooratay wallahi aniguna ka qarin maayo buu rasuulku bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي وأنو مهدنقينا نعم فربضان بو إلهي دوشينا أوليغي laakiin nicmada ugu weyn waxa weeyaan Ilaahay si gaar ah inaka uu inoo siiyay waa nicmada islaamka weeyaan adduunyada Ilaahay jalla wa ala qof uu jecel yahay iyo qof uu jecelayn labadaba uu siiyaa Ilaahay laakiin diinta islaamka Ilaahay ma siiyo ilaa qof uu Ilaahay jecel yahay mooyaane حجة الوداع نبينا عليه الصلاة والسلام markuu joogay aayadihii halka ku soo dega waxa kamid ahayd اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي عز وجل wuxuu ku yiri aayadaas maanta diintiinii baan inii dhammaystiray nicmadaydiina dushiina ayaan ku taam yeelay islaamnimadaana raalli baan igala noqday baa Ilaahay yidhi diintiinii diinta innaka iska leh qofka muslimku diinta islaamka waa inuu ku faana inuu ka faana maaha inuu ku xaragoodo weeyaan inuu ka xaragoodo maaha waa inuu yiraahdo qofku aanu muslim baan ahay islaamnimaduna qofka waa inay kashkiisa iyo laabtiisaba ka muuqataa maxaa yeelay diinta islaamka Ilaahay baa kuu doortay adigu ma dooran dadka u badan ee adduunyada dusheeda ku nool Ilaahay qeyrkii bay caabudaan Ilaahay qeyrkii bay rajeeyaan diinta islaamka diin aan ahayna diin bay ka dhigteen diin iyagu ay samaysteen bay diin ka dhigteen
waxa naftoodu ay jeclaatay markaa diin moodane diin shaydaanku uga dhigay ilaahay azza wa jalla innakana ilaahay wuxuu inoo doortay inaan noqono dad muslimiin ah aabbaha iyo hooyada labadu midna kuma dooran inaad islaam noqotee ilaahay baa kuu doortay alyawma akmaltu lakum diinakum maanta diintiinni baan inii dhammaystiray buu ilaahay yidhi aayaddan qur-aanka markay soo degtay saxaabada dhammaan way ku farxeen ilaa abubakr sidiiq radiallahu canhu uu ooyey baa la yidhi markaasaa cumar baa ku yidhi abubakarow maanta waa maalin farxad oo diinteenni baa ilaahay noo dhammaystiree oo nolosheenna diintii lagu dhammaystiro shareecaddii baa laynoo dhammaystiree maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi laa bacda alkamaali ila nuqsaan buu yidhi cumar shay haddii uu dhammaystirmuu buuxsamo nuqsaantiisa ayaa bilaabantoo ku xigta buu yidhi wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiinaan ku taam yeelay baa ilaahay yidhi waradiitu lakum alislaama diina diinta islaamkana ilaahay baa yidhi inninka anaa inii doortoo diin ahaan baan iniigu doortay baa ilaahayna leeyahay marka nicmad ka weyn islaamnimada oo layna siin lahaa ma jirto adduunyada miyaa adduunyada ilaahay isagaa haya kullan numiddu haaulaa'i wa haaulaa min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduuraa ilaahay adduunka isagaa haya kuwanna annakaa siinna baa ilaahay yidhi kuwanna annakaa siinay intuba waxay ka heleen adduunyadaas ay haystaan waa deeqdii ilaahay bay ka heleen oo ilaahay baa siiyey inna haaulaa'i yuxibbuuna alcaajilah wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila buu ilaahay yidhi kuwa waa kuwa gaalada waxa loo jeedo weeyaan yuxibbuuna alcaajilata tan degdegaysa ee degdega ku dhaafaysa bini aadankay jecel yihiin wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila waxay iloobeen oo ay u shaqaysan waayeen maalin iman doonto oo culus baa soo socota baa ilaahay yidhi waa yowma alqiyaama kuwa gaalada ilaahay baa adduunyada siiyey laakiin wuxuu ilaahay sheegayaa nolosha aan siinay waa tii degdegaysay ee degdega ku dhaafaysa bini aadanka degdeg bay qofka bini aadanka ku dhaafaysaa noloshani degdeg maalinka qiyaamaha bini aadanka marka la soo saaree banka qiyaamo la joojiyo ayagoo qaaqaawan oo cagaagan oo qof walba sidii ilaahay ku abuuray ah oo dharla'aan oo kabala'aan ah oo tintii uu iska xiiray maalintii uu yaraa laga xiiray ilaa uu dhimanayay isagoo tintii qaba ayuu banka qiyaamo iman doonaa qofku baa la yidhi ciddidii lagaa guray maalintaad dhalatay ilaa aad dhimanaysay aad iska guraysay wixii ciddii jarhkaaga ka go'ay adigoo wata ayaa banka qiyaamo iman doona deedna markaasaa la odhan doonaa qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin arladii dusheedii imise sano ayaad ku soo nagaateen qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaadiin maalin ama maalin badhkeed bay annaka nala tahaye bal kuwa wax tiriya weydiiye bay markaa bini aadamku odhanayaan hadduu 100 sano qofku adduunka dusheeda soo joogay iyo hadduu 500 oo sano uu soo joogay iyo hadduu 1000 sano soo joogay waxay odhan doonaan maalin ama maalin badhkeed baan adduunka soo joognay bay nala tahaye tiradiiba garan mayne tiradii baaba naga qaldane bal kuwa wax tiriya weydiiye bay odhanayaan qaala in labithtum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun markaa baa lagu odhan doonaa nolosha adduunyada aad soo joogteen in yar baybay ahaydba wax yar marka loo eego noloshan dambe ta qabriga ta qiyaamaha ta jannada iyo naarta lagu dhex noolaan doono marka loo eego nolosha adduunyada inta la soo maray in yar bay ahayd baa la odhan doonaa in yar ma waxaad u malaynayseen in dheeldheel laynii abuuray oo xagga alla aanad u soo noqonayn baad moodayseen baa lagu odhan doonaa afa xasibtum ma waxaad u malaynayseen annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun ma inaan dheeldheel iyo ciyaar inii abuurnay miyaad u malayseen baa la odhan doonaa oo xaggan loo soo noqon doonin may cibaadaa laynii abuuray ilaahay macrifadiisaa laynii abuuray ilaahay inaad raalli gelisaan baa laynii abuuray xaqa ilaahay nigu leeyahay inaad adduunka dusheeda ku soo gudataan baa laynii abuuray xuquuqda bini aadamku ay nagu leeyihiin
inaad adduunka dusheeda ayadana iska guddaan baa laynii abuuray meeshana waa bankii qiyaamo weeyaan waa meesha khalaa'iqdoo dhan lagu xisaabin doono weeyaan caaisha radiallahu canha umma almu'miniin ayaa oyday markaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha maxaad la ooyaysaa balii sheeg markaa bay tidhi yaa rasuula allah qiyaamaha ayaan xasuustay waan ooyey markaaye maalinka qiyaamaha eheladiinna ma u shafaaco qaadi doontaan oo wax ma tari doontaan markaa buu nebigu ku yidhi caaishay 3 meelood ma inta kale mise 3 meelood marka la marayo 3 meelood marka qof walba uu marayo qofna qof xasuusan maayo buu nebigu ku yidhi ama 3 mawaatina falaa buu nebigu yidhi caaishay 3 meelood marka la marayo qofna qofka kale ama qofka ag socda ama qofka qaraabadiisii iyo ehelkiisii xasuusan maayo buu nebigu yidhi cinda almiisaan ayakhifu miisaanuhu am yahqulu baa nebigu yidhi ilaa uu qofku kala ogaado miisaankiisa khayrkiisaa cuslaani doona mise sharkiisaa cuslaani doona ilaa uu kala ogaado labadaa ilaa uu kala ogaado midkee cuslaanaya ilaa khayrkaad adduunka ku soo shaqaysatana miisaanka kafadana laguu saarayaa shar wixii adduunka dembi iyo macaasi iyo khaflad kaa soo dhacayna kafadda kale ayaa laguu saarayaa wanadacu almawaasiina alqista liyowma alqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana mihqaala xabbatin min khardalin aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin ilaahay caza wajalla waa kii ku lahaa wanadacu almawaasiina alqista liyowma alqiyaamah miisaanka cadaaladda ayaan banka qiyaama khalaa'iqda u soo dhigi doonaa baa ilaahay yidhi falaa tudlamu nafsun shay'a nafna maaragtaanay wax yar la dulmin maayo shay wax yar weeyaan la dulmin maayo waxa liya wixii ay adduunka dusheeda ku soo kasbatay hadday khayr soo shaqaysatay iyo hadday dembi soo shaqaysatayba ilaahay wuxuu leeyahay annakaa xisaabtooda ku filan oo ka xisaabin doona baa ilaahay yidhi wa cinda asiraad buu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam iyo jidka siraad jidka siraad marka la marayana qofna qofka kale xasuusan maayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa meesha saxaabiga cabdullaahi bnu rawaaxa radia allahu canhu allah raalli ka noqdee habeenkii xaaskiisa isagoo la jiifa weliba dhabteeda ku jiifuu ooyey baa laydhoo lilmaa ka daadatay markaa iyadii buu eegay iyadiina markaa way la baroorato way la oyday markaa buu ku yidhi maxaad adu la oyday buu yidhi oo markaabay tiri dee adoo ooyayo maan ku arko anna waan kugu daray ku tiri waan kula ooyey markaa buu yidhi anugu waxaan xasuustay aayad ilaahay kitaabkiisa ku taallaan xasuustay buu yidhi waa aayadee wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم مد إنك مد مجرو وموسى أهان هدو جرب إلهي ليهي نارتا أقليا وكو أروريا أو أرنكا سوى أرن إلهي وقامي الله فيسلي ويان ثم إنت كذب إلهي ننجي الذين اتقوا أدونك دوشيدا كوي إلهي كبقايي إي الله كعبسنايي waan badbaadinaynaa baa ilaahay yidhi wanadaru aldaalimiina fiiha jasiya kuwii daalimiinta ahaana naarta dhexdeeda ayaan ku dhaafaynaa iyagoo jilba jooga baa ilaahay yidhi aayadda tafsiirkeega saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin qolo waxay yidhaahdaan naarta waa la galayaa oo waa lagu wada hoobanayaayo waa lagu daadan doonaa muuminka wuxuu ilaahay uga dhigayaa bay yidhaahdaan bardan wa salaaman sidii nebi ibraahim calayhi salaam naartii loo shiday ee in lagu gubo loogu talagalay ilaahay qabow iyo maaragtayna nabadda uu uga dhigay ayaa muuminka looga dhigayaa halka asxaabta rasuulka qaarna ay qabaan maya waa jidka siraad weeyaanoo aayaddu waa jidka siraad waxay sheegayso cabdullaahi bnu rawaaxa xaaskiisa dhabteedu ku ciyaarayaa meeshaasi waa meesha qofku maaragtaane marka uu joogo ma xasuusto xataa aakhire waa iska ciyaaraayo uu iska baashaalaa laakiin halkaa isagoo joogo haddana ilaahay xasuustu aakhiradii xasuustay marka naarta in la galayo oo jidkaa la dul marayo qur-aanku sheegay buu yidhi waan maraya anigu laakiin kuwa ka badbaadaya alla ka cabsiga lagu sheegay ma ku jiraa mise kuma jiri taabaa ii kala caddayn buu yidhi markaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay halkaa jidka siraad marka la marayana
qofna qof xasuusan maayo meesha saddexaad uu nabigu sheegay waxa weeyaan cinda alkutub qofka mar walba kitaabkiisa la siinaya buu nabigu yidhi ilaa uu qofku kala ogaado ma gacanta midig buu ka qaatay mise gacanta bidix فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لبدب إلهي القرآن كأوكو شيغي ككتابك قعنت مدك كقاتنا بإلهي يدي حساب فضب مركا هلا يا متيسنا يا أهل كيسين حق أي جوغان بو قدوما يا نقونا يا بإلهي يدي أهل كيسي أهل كاغو كوان أدونك أدح جوغتا ماهن أهل كان أدونك أدح جوغتو وأهل لنقو امتحامي ويان قبضا ننكيغا واللقو امتحامي ننكا نحاسكيسا واللقو امتحامي قبضا إلمهيغا واللقو امتحامي وبد كان الهيستوردن واللقو اختباري إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلهي با قرآنك إنه قشيغو يدي إنما وكلمة الحصر ويان إنك لما هنا أولادي الناس يحوله الناس وفتنة محل الله استعمالا وحلي وحي إلهي الطاعات ديسا دقر قيسا إيا مقصدك إلهي كو أبو ركها مشغولين يا أردن وفتنة ويان وفتنة حقيقة ماها أفضل بإيه الكيسة حقيقة دا حديك قبرت هينا حدو نية هي أفضل بكتابك ميدك مركو قعنت ميدك وكقاتو حساب فضد بالله حسابين با إلهي يدي أهل كيسينا حقي جوغان بو قدوما يايو أهل كيسي رنتاها أيا البابك الجنة كو سور دويني وكو استقبالا يا هادو نية هنا حور العين تيسية قبله مؤمنات يا إلهي وقدريبا يا البابك كو سوغا يا هذا قبل مؤمنات أيتهينا أيضا الزوج كي ربطها هذا البابك الجنة كو سوغا يا لواد باستيا صوصو عقولي امتحانك واتكو باستيا صوصو يبقى إنه كوكو مالهم جامعة دكتور امتحان كباسوا يا امتحان إنه هلاي من موديسا يكون روف كوصو دعيو بلا يوه دعاء دي بالله أقبله والله قاضي هالكين لقيي صح معها امتحان كرنت وحويان وكاب بنك قيامه ويان وكي عائشة لأويس رضي الله عنها أم المؤمنين زوجتي النبي عليه الصلاة والسلام مبشرة داحيد الجنة لو بشاريي حاسس كالنبي يقول سيدي أديهين جنة والله بشاريي بدون الاستثناء ويضمر كإلهي نبي محمد ودورتي وكل وقت جنة أدون كدوش يدين حاسس كسيبه هايان آخرنا وحاسس كسيه وكذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام الجنة وحو كلها هي مقام المحمود أعلى درجة في الجنة ويان أي نبي محمد إلهي سيي وكان النبي يقول مركا آذانك آذ مغليسان يا رياض مؤذنك أولي حكاد بردها برسولك عليه الصلاة والسلام دهنا مركو مؤذنك آذانك ودميانا يوصل لي عنك دهنا إلهي وصيلئي ويدية فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا من عباده وأرجو أن أكون هو أبو نبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة وسيلة إلهي ويدية واللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودعدس وسيلة أبو نبي معنا يوحو يدي ومنزلة جنة كتها لويان أدون كليو أدومها إلهي كمدا أمبا وحبونته هلي دونا وحانا كل رجاء بابو نبي قد أدون كاسينو يحي أنيق أبو رسولك يدي قفك إلهي شفاعة داس قفك إلهي وسيلة دا إيويدي أبو نبي قد مركو آذانك مغلنا إساقنا شفاعة دا أواجبت أبو نبي قد عليه الصلاة والسلام درجات دا أقصر رئيسة جنة نبي محمد بالي حاسس كيسنا ويلا قليان عائشة رضي الله عنها أنا حاسس كنبي محمد تو نبي قوتش على بيحيد وقادا أمام الملأ فقاروه نبي كشيء عائشة مدتك قوتش عليها حديث يا عمرو بن عاص أي صحابة أفانو يري والنبي أنو يكون جعل يهي مركز على قول وركفيرسو
ما النبي أنو يقول كين جعلي هذا الكسبة بتي مركز سالري بل ويدي وابن ويدين هرتنا كويدين بوي مركز المساجد قصدا لوب وحيو يري يا رسول الله دتك أصحاب هذا يا ذو قش عايشة بليش شيك مركز أبو نبي عائشة نقول عليها رضي الله عنها مركزو هدنا مرلا بعد بيدي رجع ما يرجع نوجدنا أصحاب هذا رجعنا أبيه بانوجو على هيبود أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرجع أبو الأيا كحجة مرجع سير عمر با كحجة أبو رسول كيري هل كان مركو مريا عمر بن عاص وان حشود وان آموسي مرجع سال ويد محد ويدي ويد السؤال أسي ودي ويدي وحن كبقى إنه يقدر النبي كوجود ضمي أصحاب تسجل هيبود عائشة النبي قدرت كأنه وجود على فقاروه كشيء تاسع النبي قهرتي سكوا يسكا ورما إنك أنا كورما حال كنا صدح ذا ميلود بود عائشة مركا لما رايو وفنقف حصوصا مايو جدك السراد يا ميزانك يا كتبتها هلك لقا قاتو وفنا ميدك توكا قادنا يا كوا ميدك تلقسي الله ينقدقو عمل ما هينو لكن حريصت إلهي برنجينينا سو ما هنده إلهي نحريستي سكقوسا مينو ورحمتي وسعت كل شيء نحريستي إلهي با وحول بكا واسع سنو كبلارن مركا دين تا إسلام كا إلهي نسيي وأنا النعمة أرنو نعمة دا إلهي ومها نغنويان إسلام الدنيا ده تتكاس عيد والبيلهي أدونك أوسيا كو الله دا عابدو إلهي سيا كو قريها عابدو إلهي سيا قال ذن إلهي بأن قرنين ملحدين تليراب إلهي سيا قيمة ملأ الدنيا دو قيمة ملأ بل قال ذا وحى الله سينا يا وإن لقو قبت إياك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله بهم إنما يريد الله بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها قال ذا أي إلهي كل يهي فلا تعجبك أموالهم حوله فرحا بدن إنسين أيك أيان كوياب قلين بالنبي قال له يقول المه كان عد قرح ذا بدن ليلي هنا درك سبع بعب بربورنا وحبه الله يابن بالنبي قال له يقول ها وحمدون النبي إلهي أدون كدح ذا إياك وحى ودن هاي سنة كدح عذابنا دون نبي إلهي الدنيا هذي قيمة لا هذا حي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يريريه سيب أدونك اللسين لها مركي مكة لجوجي دينتو بلو بيهاي دعوده مسلمين تعديدي يا الرفاد يا كاجا يا فقر يا صبولني بيكون ولاين مدينة المنورة مركي لو سو هجرودي دوركي سنة هوريسay كذلك والله صبري waayo nabiga martida ku bandeed martida uu imanaysa nabigu wuxuu ku maamuus jiray ku deymin jiray deyn buu uga qaadi jiray yahuuda deynka nabigu reerihiisa iyo masaarifta reerihiisa uma qaadanayn wuxuu u qaadanayay dadka maaragtaan waafidiinta magaalada Madiina imanaya ee nabiga inay la kulmaan u imanaya qaarna ay soo islaameen ee diinta masjidka nabiga ay ku baranayaan dadkaasuu nabigu deynka u qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam oo nabigu deynka wuxuu ka qaadan jiray yahuudu nabigu deynka ka deymisan jiray yahuuda markii dambe jihaadkii ilaahay u furay ee gaaladii laga guuleystay ee ciidanka uu nabigu diraba guul iyo dhaqaale ay la soo noqdaan iyo qaniimo ee xaasaskii nabigu ay arkeen xaasaskii nabigu way arkeen in dhaqaale soo galay magaaladii Madiina oo nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka uu siinay masaariif ayaad xaasaskii nabigu maalin intay isku tageen dhexdooda qaar kamida ayay waxay yiraahdeen hadee toole cidhiidhigii iyo faqrigii waa laga soo baxee oo dawladda islaamku dhaqaale yeelatay nabigu masaariif meel hay noo saara biilkii erayada markay dhexdooda ay wareejiyeen ayaa isla markiiba nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyooday ilaahay baa ku yiri xaasaskaagii adduunya soo gashee ka hijro baa nabiga lagu yiri iskaga hijro dadna 20 maalmood in ku dhow nabigu reerihiisa ma tagin masaajidku iska seexanayay
ilaa magaaladii madiina waxaa gaadhay war la leeyahay nebigu reerihiisii uu furayba siday u dhannaayeenba u wada furayba cumar baa maqlay abubakar baa maqlay waa shaykhayni jaliilayn nebiga calayhi salaatu wasalaam hablahoogu qaba hablaha ina cumarna xabsana nebigaa qaba caaishana nebigaa qaba markaasaa abubakar asidiiq radia allaahu canhu ayaa u tegay inantiisa caaisha aabbo war baan magaalada ka maqlay ma waxbaa jira maxaad maqashay aabbo waxaa nagu maqla nebigu reerihiisii inuu furay ma waxbaa jira mayna lanama furin laakiin nebigu naga hijrooday yidhaahdeen cumarna uu socdo xabsu u tegey xabsa saasaan maqlay ma waxbaa ka jira may waxba kama jiraan laakiin nebigu naga hijroodo hadalkii buu naga joojiyey bas noomana yimaado maxaad samayseen cumar baa yidhi maxaad samayseen dee sheega dembi baad samayseene wax kale ma samayne isagana weli warkamaba gaadhsiina waxaan isnidhi haddee toole dowladda islaamku masaari baytalmaalkii dhaqaalaa soo galaya oo baytulmaal bay yeelato haniima la keenayaayo xoolaa la keenayaaye dadkaa la siisiinayo maan la mid nahee nebigu masaariif meel ha noo saaro oo hala naga warhaya si gaara ayaan nidhi bay yidhahdeen dhexdayadii deedna warkii baa ilaahay nebiga u sheegay nebigu waa naga hijrooday maalin maalmaha ka mid a markaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo gurigii xabsa markaa muraad u yeesho soo galay ayuu cumarna eeganayo markaa buu ka soo dabagalay markaa buu yaa rasuul allah dee maad furtay buu yidhi xaasaskaagan ma furin buu yidhi maxaa soo kordhay noo sheeg dee wixii jira han xalline adduunyay ku weydiisteen cumar uu ogyahay in adduunya ay weydiisteen inantiisaa u sheegtay markaa buu nebigu yidhi haa ma odhan nebigu u aamusay markaasuu cumar binu khadaab baa yidhi aniga islaanta heblaayo hadday adduunye i weydiiso qori intuu qaadaan dhunta ka gelin buu ku yidhi markaasuu nebigu qoslo wuxuu yidhi anigaba xabse iyo kuwa la midii adduunye i weydiisanayaana bal u sheeg buu yidhi iyakana bal u sheeg buu yidhi u sheeg deedna markaasuu nebigu qoslay calayhi salaatu wasalaam way ka soo baxeen isagii cumar markaa masaajidkii bay soo galeen aayaadkan markaa ku yaalla suuratulaxzaab ee layidhaha aayaatu takhyiir aayaadka kala doorbidashada ayaa ilaahay markaa nebiga ku soo dejiyey yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayni umatickunna wausarrixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsanaati minkunna ajran cadiima aayadahaasaa nebiga markaa dushiisa ku soo degay la leeyahay xaasaskaaga waxaad ku tidhaa adduunyadii iyo ziinadeedii iyo dhaldhalaalkaygii doorta waa oo dhinacaasa dhinaca kalena waxaa la dhigay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadii aakhiradii baa la dhigay labada kala doorta ku dhabaa lagu yidhi warka waaba loo soo gaabiyeyba waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uguma talagelin inuu ka fikira adduunyo waa shakhsi loogu talagalay dadka badbaadadooda inuu ka fikiro iyo naxariistoodii iyo hidaayadoodii iyo iimaankooga inuu ka fikiro weeyaan marka xaasaska nebigana waxaa la leeyahay maadaama nebi maxamed risaalad caalamiya loo soo dhiibay oo qalbigiisa ay ku jirto murug ummadeed iyo walwal ummadeed iyo naxariis ummadeed iyo maaragtaana dareen ummadeed baa nebiga qalbigiisa ku jira inay nebiga mashquuliyaan ee adduunye ku mashquuliyaan ayaa ilaahay ka ilaalinaya deedna ilaahay baa nebigiisa la saftay markaasaa nebigu aayadaha dushiisa ku soo degay cidda uu ugu hor bilaabo u bandhigay ma taqaanaan caaisha radia allahu canha tuu dadka ugu jeclaa ayuu nebigu horta u bandhigay wuxuu yidhi caaisha soo fadhiisa halkaa buu yidhi way fadhiisatay waa markaa 22 cisho waxaa laga yaabaa inaan la isla hadalba oo la kala aamusan yahay oo dumarkii nebiga yaab ka dhammaaday oo magaaladii madiina la yaaban yahay markaa buu yidhi caaisha kale aayadahaa baa dusheeda ku soo degay go'aan qaadashadana ha ku degdegin buu yidhi ka fiirso inan yar baa tahay aabbaha abubakar iyo hooyadaa way nool yihiina u tago iyaka markaa kala soo tasha buu yidhi waxaad yeelaysid markaa bay tidhi bal aayadaha horta dusheeda ku akhri bay tidhi markaasuu nebigu ku dul akhriyay labada aayadood aayadahaas suuratulaxzaab ku yaalla ee la leeyahay tiinna adduunyo doonaysa ha sheegato maxaa la siinayaa nebigu uu furayaa
meherkoodii waxay nebiga ay ku lahaayeen xuquuqna waa la siinayaa adduunyadana waa kaasoo waa loo furi doonaayo dee adduunyada iska gali haddeetool adduunyay qaadatay aakhira nasiib ee dheef kuma la weeyaan ta doonaysa ilaahay iyo rasuulkii aakhira inay qaadatana waa muxsanad weeyaan ixsaan bay la timido waxaa la yidhi iyadana ajar weyn iyo mushqaayad iyo dembi dhaafa ilaahay u diyaariyey baa la yidhi caaisha markii arrinkaa nebigu uu ku dul akhriyo u sheegay tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan labadeeda waalid aan kala soo tashan may bay tidhi yaa rasuulallah go'aanka haddaan kuu sheegay go'aankayga allah wa rasuuluhu wadaara alaakhira ayaan doortay oon qaatay maanta intay ka dambaysana hadal adduunye aniga layga maqli maayo taa igu ogow bay ku tidhi deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu farxay markaa uu farxay marka uu ka kacaayay ila kuwii kalena waa inuu u sheegay mid walba uu yidhahdo aayadahaabaa soo degee kala doorta ayaa caaisha markaa ku tiri nebi allow khiyaarkayga anigu aan doortay adiga iyo ilaahay iyo aakhiro xaasaskaaga midba ha iga sheegin bay ku tidhi waxaad mooddaa maseer baa ku jira halkaas markaa buu nebigu ku yidhi wallaahi buuhi hadday anu kaaga sheegi maayo go'aankaad adu aad qaadatay laakiin haddii ay yidhaahdaan caaisha maxay dooratay wallaahi aniguna ka qarin maayo buuhi rasuulku u sheegi maayo laakiin hadday xaasaska nebiga calayhi salaatu wasalaam marka horeba ilaahay baa u doortay laakiin tan tarbiyad bay ahayd tarbiyadoo adduunyadu inay qiimo lahayn baa la tusinayey oo wax macnaba ay lahaynba oo waxaa la tusinaya nicmaddan ay haystaan ilaahay iyo rasuulkiisii iyo daarta aakhire ay doorteen ay qaateen inay wax waliba uga weyn tahay baa ilaahay markaa uu tusinayay baa la yidhi walaakiin ilaahay waa og yahay marka horena ilaahay isagaa u dooray inay xaasaskii nebi maxamed ay noqdaan waayo iyaka culaysyo fara badan oo dumarka kale aan ku dhacaynin ayaa iyaka ku dhacay maxaa yeelay zawjkooga adduunye inuu ka shaqeeyo loomaba oggolaba waxaa kaloo culays iyaka ku dhacay ma taqaanaan xaasaska nebi maxamed ilaahay caza wajal caaisha ummuna khadiija radia allaahu canha iyo maariyatu alqibtiya mooyaane inta kaloo dhan ubad lagama siinin kulligood waa wala bilaa ubad caaisha ilmo uma dhalin kulligood waad wada garanaysaan waliba tii ilmaha dhashayna baa la yidhi hee iyadoo arkaysay ubadkaygu inta badan ay dhinteen baa la yidhi oo nebiga ubadkiisu kama dambeeyaan nebiga waxaa lagu yaqaanaa sifaadka nebiyada ubadkoogu iyakoo arkaya bay dhintaan oo way ka horreeyaan culayska nebiyada la saara iyo xaasaskiisa waxaa kaloo ka mid ah haddii nebigu dhintuu adduunyada ka intiqaalo xaaskiisa cid damba guursan maysay ogow caaisha radia allaahu canha iyadoo 18 ayuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam 50 sanana nebiga dabadii way noolayd baa la yidhi ninna ma guursan karo innaga gabdhaheennan caadiga ee muuminaadka adduunka kaa dhinta ku kala iska guursan adduunkaa tegana ku kalaad iska waxun baa ilaahay kuu qori oo rag baa laga yaabaa rag wanaagsan ilaahay inuu kuu keeno walaakiin bal u fiirsada dumarka nebiga culayska ku dhacay sababta culayska ugu dhacay waa maxay ilmo la'aan iyo nebigooga inay adduunye aynan weydiisan iyo nebigooga gadaashiis inaynan guursan oo nin kaleba indhaha aynan ku taagin sababta waa maxay waa aswaaj annabiyi calayhi salaatu wasalaam siday adduunka dushiisa ay u ahaayeen xaasaskii nebi maxamed aakhirana waxay yihiin xaasaskiisii bay yihiin ogaada idan qudway noo yihiin innaka qudwo xagga iimaanka xagga alla ka cabsiga xagga xishoodka xagga cilmiga xagga zuhdiga xagga infaaqa xagga akhlaaqda iyo qiyamka yaad ku dayan man kaana mustannan falyastadni biman qad maata buuhi cabdullahi ibnu mascuud ulaa'ika asxaabu muxamed kaanuu khayra haadihi اlummati abaraha quluuban waacmaquha cilman waaqaluha takallufan qowm اkhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi cabdullaahi ibnu mascuud baa yidhi haddaad cid ku dayanaysaan kuwaa dhintay ku dayda kuwee asxaabtii nebi maxamed ku dayda calayhi salaatu wasalaam radia allaahu canhum gabdhaha ha ku daydaan saxaabiyaadkii dhallinyaradoodii ha ku daydaan odayaashoodii ha ku daydaan culammadoodii ha ku daydaan madaxdoodii ha ku daydaan waa qudway u yihiin caalamka qudwa
وايا واجيل نبي محمد وتربيته ويان واجيل دينتي وفريش قاتين فريش لنا والبا أيك إنه أمارة أنا قدوة حق إيمانك حق التقوى حق الزهد بقول يلا بعد تنكن أو دينار أو درهم أو دينار أو درهم أيوة معاوية أصدر عائشة رضي الله عنها يدا صومن قبل جارية دي وشقين يسي كتري بحي ريركاسي ومساكين انت اوجي ريركاسي واغون انت اوجي تاسي وعرمله انت اوجي تاسي وقبل ما انمديدي با جهادك كغ دنتي انت اوجي كواس وغربايا اوجي كواس ومسافرين اوجي قبل كينا او دحيا وين سومنتahay inantii khaadimadu waxay moodaysay marka inay wax hoosta ku haysay reebtay marka bay tir hooyo afurkii baa la gaadhay afurka maxaan inoogu soo iibiyaa balkeen marka bay tir oo xoolaha inta leega fariqayay baad wax nooga reebtidaa bay ku tiri adigu seeta Aisha radiyallahu anha nafteeday ilowday nafteeda hatta afurkii ay ku afur lahayd iyadii khaadimadeedu ay xoolaha inta leega loo keenay ka reeban weyday واي درسيغا ميشي باي كبرتين نبيغي كبرتين عليه الصلاة والسلام نبي محمد باي كبرتين نبي محمد با ليدي إيا دقالة الدنيا أقل هابين كما وضهوين با ليدي نبي إيا الدنيا ميل ما وضا سيحدان ما دام قويسك النبي أي كهرين وعيتني دي العراقت دانيغا كما بريدي انت عن حولها فرقايي أذابو أوجاي ما نوشك تدابي كتر أفر بندوقر بلاهيدي يدي بديبو قبصة طيبة سكدا بكتر إلهي وحنو كانوا منعونا الناي إنكونا ما أنت هوانا ودقيستا حولها إن أبدا وحال غيا بأينا كوب حنا مارتان اسقرحنتين وحال غيا بأينا كوب حسان مارتان أقل كقرحنتيس عائشة رضي الله عنها أقل كي كن وليد وأقل كأي كن وليد وأقل كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتو نولا ayuu ku yiri Aisha ay ummul muuminiinay hada dhimashada adiga horeyso meesha yare kaaga hadhay ee seexanaysid waa ku daysan in lagaaga dhigo qabri nabiga agtiisa oo zawjkaaga aad ag seexatid waan ku ogolahay laakiin hadaan horta ka horeeyo horta dhinto Abu Bakar oo saaxiibkayga iyo nabigaygii oo rasuulkaygiiya labada agtooda hal igu duugay may ogolaanaysaa markaa beetir Umarow meesha aniga diyaarsado ku tala galay in igu duugay لكن هداد إيجا هرئيسه وانكودا يكتري هداد إيجا هرئيسه هل كان نبينا كو آسن عليه الصلاة والسلام والزوج كدي هل كان أبيه أبو بكر أقل كأنتي هدينا مركا يدا صيحتا بلو فرسو معلنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله دورين مديد اللقيلي أيو إن قيسي عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس رجي مركا ميدا يبو كويري إذا قيستا anigu waa taydii baa ii timiday shahaadadan ilaahay weydiisanayay ayaa ilaahay madiina iigu keenay hadaan dhinto meydkayga qaada Aisha radiyallahu anha aqalkeeda hor dhiga ha oranina amiirka muuminiinka sinda ha oranina waxa tiraadaan meydkan waxa weeyaan waa adoonka ilaahay Umar ibn Khattab meydkiisiiye ma ogolaanaysa nabiga iyo saaxiibka Abi Bakar in agtooda lagu duugo ma u ogolaanaysa haday ii ogolaatana halka igu duuga hadday ma tiraadana qabuuraha muslimiinta igu aasay buu asxaabtayda ii geeyay buu ku yiri way soo qaadeen meydkiisii bay markaa hor dhigeen aqalkii yaa ummul muuminiin way soo baxday waa magaaladii Madiina aqal magaalada Madiina kuma yaala ilaa waa laga barooranaya Umar baa loo barooranaya amiirka muuminiinta shakhsi qiimo leh oo ummadda nabi maxamed macno weyn ugu fadhiyay ayaa adduunka ka baxay maalintaas aad baa looga naxay dhimashadiisii Aisha radiyallahu anha oo murugaysan ayaa soo baxday markaasay ku yiraahdeen meydkii waxaan wadnaa Umar ibn Khattab meydkiisii baa sidnaayay ma u ogolaanaysaa meesha in lagu aaso oo qabri uga yeelo markaa bay tiri haa intuu noolaaba weydiisto waan u ogolaadee ii kaadiyay bay tiri alaabta aqalka ii taalahan kala soo baxay intaan u socdo waa inta ay dhageysta alaabtay soo qaadanayso alaab intee lag bay kula tahay marasuufa oo waliba marooyin badan la isku doltolay ah
oo dhinacna ay ka goglato gogol ka dhigato oo dhulka ay iska xijisiiso dhinacna ay ka huwato iyo weel ay biyaha ku dhaansato labada kaliya bay aqalka kala soo baxday baa leeyahay sida uu hagoogan dadna waxay tiri gala qabrigan halka uga foqo ku aasabeetir oo u deystay وعائشة رضي الله عنها أقل كذا ألابت إنت لك بعد احتالي إنك أنا ما أنت أدوية أقل ذي إنت لك ورما إلهي هنوصل نقولنا وزينة أن الدوية النبي وكيلها استحيوا من الله حق الحياة استحيوا من الله حق الحياة إلهي كحشود أبو نبي يقول حشود كي حق أقولها إن لو حشود أو حشود أبو رسول كي أصحابته وحيد هذين الحمد لله يا رسول الله إلهي وأنو كحشودنا وأنا نقول مهنقينا بكويد هذين مركب أبو نبي يقول حشودك الصداء أدو فهمتين ماها حشودك وحويان أبو نبي يقول وين هذا الالسان أبو نبي يقول ماذا حي وحي ويلي يا علوش يا وحي أجاجار كيجانا إن هذا الالسان ويا أبو نبي يقول أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى النبي يقول عليه الصلاة والسلام وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا النبي يقول عليه الصلاة والسلام حشوتك إلهي لك حشو وحويان مضحى يحبنها مضحى كويا لا وأنا ذي إلهي كقعب ستايوت كحشوتا إلهي كسيي أرجو نعمة إلهي كسيي لكن وحول لبكو يجي إلهي كمؤرن مقالك ونعمة إلهي كسيي لكن وحول لبكو دقي سلقو مؤرن عربك ونعمة إلهي كسيي وحول لبكو شغلقو مؤرن علوش وامحي علوش هذا يوحي هريرهيغا علوش عورده ويان من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ayaa ii damaana qaadi oo ii ballan qaadi buu rasuulku yiri inuu ilaalinayo carabkaas labada daan dhexdooda wixii ahada waa carabka iyo labada lugood dhexdooda oo waa cawradii waa farjigi labada ayaa ii ilaalin buu nabigu yiri oo janno ugu ballan qaadaa xishoodka ilaahay laga xishoon waxa weeyaan madaxaya wixii uu weeleeyay ilaahay kaga xisho carabka iyo maqalka iyo aragga ha iska dhaadhicin inaad adigu aad leedahay may adigu ma lihid waa lagu siiyey ilaahay baa kuu dhiibtay nicmadan maalin bay nicmadani ayna shaqayn doonin ogow waliba waa nicmo cajiiba baa la yidhi dhinacna waxna waad ku eegaysaa kaamirana way ku dhex jirtaa iyo waxaad ku eegtoona way duubaysaa ogow waad hadlaysaa laakiin waxaad ku hadlaysaa dhinacna hadalku uu duubayaa dhinacna waad ku hadlaysaa waad ku maqlaysaa waxaad maqlayso dhan maalinka qiyaamaha dhagtu way warrami doontaa ogow yawma tashhadu calayhim arjuluhum yawma tashhadu calayhim alsinatuhum wa arjuluhum bima kaanuu yaksibuun alyawma nakhtimu cala afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun maalinka qiyaamaha qur-aanka ilaahay kaga warramay ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بما كانوا يعملون وحي أدونك دوشيدة أتكون مغلي سورنا نكتا كورمي دونتا وحي أدونك دوشيدة أتكون هل ليس عربك ورمي دونا وحي أدونك دوشيدة أتكون قباني سقعنتا ورمي دونتا لوكتاني ماشي أدون مرتيك ورمي دونتا أرلادان دوشيدة أتكون سعوتنا بانك قيامه ورمي دونتا إلهي بقرآن كيسا كو شاكي حديد كمركز حشوتك إلهي لقى حشون وامحي لقاها إلالي وكا إلالي وامحي وحي شريعات الإسلام كو أي مركو ربا كودي دكا إلالي عرب كاقا إلالي وكا إلالي وامحي وحي شريعات الإسلام كو كاجو جسونا عرب كاقا كا إلالي جنة دان قليبو نبي حديث كلها دادك جنة دان قليب فقرada dadka fuqarada ayaa ugu badnaa waa faqiirka muuminka loo jeeda jannada naartana waan galay buu nabigu yiri naartana waxa ugu badnaa buu nabigu dadka gale haweenka ugu badnaa
والله ويدي نبينا عليه الصلاة والسلام دمرك الصحابيات waxay ku yiraahdeen oo nabi Allah anaku hadaan haweenahay naarta galideeda maxaan ugu badanay noo sheeg carabka abu nabigu sheeg tukthirna la'na abu nabigu aydina badan xantina badan isku dirkiina badan way tiri uu yiridiina ayaa badan ragiina hadaad isqabataana ninkii 20 sano ku tabcay kugu daalay adiga ee adiga dhashaada ku daalay hal mar oo isqabataan ayaa laga yaabaa inay tiraahdo gabadhu waxuu ninkaas macruuf u leeyahay on aragnimaba jiraba haba yaraatee oo inkiri maaha kulligood waa badhkood laakiin waa miisada dumarka lagu yaqaan buu nabigu sheegaya ee haday naarta galeena intooda badan ay ku galayaan buu nabigu waa maxay zawjka xaqiisa way naaqusaan way dhimaan oo ninkii inta oo sana macruufka u sameeyay hal maalin isku dhaceen bay macruufkiisa oo dhan inkiri عيدنا وكبدن تهيب النبي لعنده صحابي النبي كويري إلى دردارا مرقاب النبي كويري عليه الصلاة أمسك لسانك عربك قبو وابكي على خطيئتك الدنبك هذيك كاد عين اللؤي وليسعك بيتك أقلكاك ونهاكو دقوها كوكف الله ورسول كويري حشو إلهي عز وجل هنكحشونه زمن حل أدقنا واللقو جراع وخير كسي يرانايو حمانتنا يسي بدنا يسو حل وحا كجرنا ونسي دوانينا دادك دينتا هايستي دينتا كردقن أي يرانايان ونقونايان داد فرقو ترسا دادك دينتا إسلام كفقنا يسي بدنا يان maxaa markaa inala gudboon oo laynaga rabaa khusuusan ininku haween baatihiin haweenku ummadda mujtamaca basharka adduunyada ku nool iyo mujtamaca islaamiga labadaba marka la eego boos muhiim ah ummadda ugu jirtaan ininku xuquuqdiinana diinta islaamka meel sare saartay xaqa diinta islaamku ay ku siisay cid ku siin kartaa ma jirto waxay diinta islaamku ku siinina cid ku siin karaysa ma jirto ogow halka islaamnimadu ku gaarsiisina cid ku gaarsiin karaysa ma jirto shariicada islaamku way ilaalisay xuquuqdiina laba shay buu nabigeenu ka dardaarmay markuu dhimanayay xajjatul wadaa xajkiisii ugu dambeeyay nabigu ummadda uu la dardaarmayay waana xajkiisii ugu horeeyay uguna dambeeyay waxuu nabigeenu ku dardaarmay laba shay salaadana uu nabigu waa nagala dardaarmay حقوق الضمر كاين لا إلالينا النبي وكدر دارمي حقينا النبي وكدر دارمي استوصوا بالنساء خيرا أبو النبي عليه الصلاة والسلام ورهوي هوي أبو النبي رقو ضمر كخير وقاد أبو النبي خير ولا دردار مر والبا خير وقدر دارما dhaxalkana gabadhu meelna kuma dhacdo meel walba dhaxalka way ka soo gali inta badan haweenku ma baqadaanba shariicada islaamka bal halkay nisaartay eega mar hooyay wax ku qaadan mar inan bay wax ku qaadan oo aabaheed bay dhaxli mar zawjkeedii bay dhaxli mar mucay bay wax ku qaadan mar walaal bay wax ku qaadan صلاتنا النبي وكدر دار من صلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وروي صلاة كد دال أبو نبي يقول يدتك إلهين ملك السيي وأضمها دتك أضمها برجع جري حقوق ذو النبي وكدر دار مي هوين كان النبي حقه وكدر دار مي رجوا إلى ليان دين تدمر كنا دين أذق ما دين تنوافضيد ولا نيفضيد دين الإسلام كإنك علاش كرجع أنت بدن لا صار إنك ولا إنك خفيفية محل إنك خفيفية علاش كإنك أنا صلاة الجماعة لأن نقربها إنك أنا صلاة دين قرية كفل بدن تهاي بشريعة وأي تري أنا كشغدي كسبك بلا نقربها حلاشين أنو بحنو قبل أنا وحال اللي ما يدو قرية هجوك قرية هسكفردو تعب كرجع لا صاري إنك أنا وحال النساري مسؤولية دير كجوري على النساري هل الرجل ليدي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
gabadha muuminada waxaa la yidhi waqarna fii buyuutikunna iyadu guriga ha joogtaa la yidhi aqalkayga iyayna ka soo bixin hadday safar u baxaysana oo safarkaasi uu yahay masaafatulqasrina waa inuu maxramkaygii la socdo weeyaan maxramkaygii nin baa nebiga u yimid oo yidhi nebi allow nebigaa maalin yidhi gabadhu inay keligeed safrin buu nebigu ilaa maxramkeegoo la socdo mooyaane markaa nin baa hadloo yidhi nebi allow anigu khaswaddaas ayaan ku qornaa inaan ciidanka raaco xaaskaygiina xajkay u dhaqaaqdee maxaan yeelaa markaa buu nebigu yidhi xaaskaaga maxram u noqon la soo xaji buu nebigu ku yidhi maxaa gabadha loo odhan waayey keligeed xajka ha tagto waa gabadh way jilicsan tahay dhibaatooyin fara badan baa laga yaaba inay la soo darsaan jidkaa laga yaabaa inay ku dhacday ku dawaqdo oo ku xanuunsato nin ajaaniba gacanteeda inuu qabtaa laga ilaalinayaa maxaa yeele waa warshadduna injineer keliya leedahay 10 injineer warshaddu ma yeelato warshaddu director keliya maamula xafiiska director keliya ayuu leeyahay 10 director ma yeelato warshadduna muhandis keliya leedahay 10 muhandis ma yeelato waxaa yeelay haddii ay إذا كثر الطباخون فسد المرق بيتر عربته كون وحكرنا هدي بطان مرق أي فسادين يان ورشد هدي 10 إنجنير يالتو خلل بعد عيا خلل قبضنا ورشد ما دام ورشد هنا وح الله تلقى له هل نكلي قبضنا إنه أرحو زوج كلي الله تلقى له سنسب كبني آدم كالله إلى لي ونسب كون نضيع منه رفقا بالقوارير بو نبي يقول عليه الصلاة والسلام مركي هودجكي أي هوينكو أي سارنايان وأورتن لوغا دول سمين جري مركا أقلدا زمن كاس يا حاسسكا يدمركا لغو حاجي سين جري أيا مركي أورتي دمركي ريم أنصاريد يدمركي نبي صلى الله عليه وسلم أي سارنايان أيا نينكي أورتو هوغانكا أوركا أوهرايا هيي أيا سوغانتي أورتا أيو قاضا مركاسي أورتي سفي عن لوكتا اسكولا هالشي markaa buu nebigu arkay awrtii oo markaa awrtii kale ka dheeraysay markaa buu nebigu rafqan bilqawaariir waryaada buu waryaa war awrta suugaanta aad u qaaday ka jooji buu ka yare oo socodka ha yarayse maxaa yeelay qawaariir buu nebigu ka cabiro dumarku inay qaruurada ay yihiin sida qaruurada loo ilaaliyo dhulka inay ku dhacdo hadday dhulka ku dhacdo qaruurada way jabaysaa ayuu nebigu leeyahay war waa qawaariir sida qaruurada weelka qaruurada looga ilaaliyo ilmaha yar inuu jabiyo weelasha qaruuradaha waad ogtihiinoo meel sare ayaad dhigtaan ayay nebi maxamed u yidhi waa qaruurada inoo ilaaliya inaga jajabine wayna ilaalinaysaa diinta islaamka diintaasaa ilaahay nagu manaystay idan waxaan u baahannahay inaad idinkuna noqotaan murabbiyaat inaad gabadhu noqoto hooyo murabbiyada hooyo mucallimada hooyo maaragtaane caabidada hooyo ilaahay taqaanaan loo baahan yahay oo ilmo aqalkeeda uu ka soo baxay isaguna ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan ilmo wanaagsan haddaad aragto aqalka uu ka soo baxay hooyo iyo walaal wanaagsan baa u fadhida ilmo akhlaaqdiisu ay fiicneen haddaad magaalada ku aragtana baa la yidhi aqalka uu ka soo baxay hooyada joogta ayaanan wanaagsanayn ilmuhu aabbaha inta badan lama jooge hooyo ag jooga sida hooyadii ay noqoto ilmuhu noqon baa la yidhi idan waxaan nagula dardaarmaynaa booska ilaahayna dhigay ee ilaahay jalla wacalaa uu ummadda iniigu dhiibay inaad idinkuna booskiina ka soo baxdaan oo diintu xaggiinna aynan ka soo leecin oo dacwadda iyo diinta dadaalkeega aan gacmaha isku qabsanno kulligeen ilaa kuntum khayra ummatin khurijat linnaas aayaddu raggoo keliya la hadli maysa haweenkuna way soo galayaan gabadha muuminadda ee muslimadda ee ilaahay ugu doortay ummadda nebi maxamed inay noqoto calayhi salaatu wasalaam ayaduna way soo galaysaa aayaddan masdarkan way soo galaysaa wixii ragga laga rabay adigana waa lagaa rabaa adoo gurigaada joogaa lagaa rabaa inaad noqoto gabadh murabbiyad oo daaciyada oo dadka wanaagga faraysa xumaana ka reebaysa sidee gabadha gurigeeda dacwadda uga wadaa gabdhaha darisku hadday ku yimaadiin gurigaagaad wax ku dhex bari kartaa aduu gurigaagaad diinta ku baran kartaa guriga dhexdeeda adoo jooga ciddii ku timaada diinta iyo iimaaniyaadka salaadaad kala hadlaya asturka akhlaaqda wanaagsan ilmahaagaa diinta ku tarbiyadayn kartaa
لأن dhashoo dhan aqalladay ka soo baxayaan hooyo unbaa aqal walba fadhida marka hagaagiinna bay yidhahdeen culammadu gabadha wanaagsan waxaa la yidhi kun nin oo wanaagsan bay ka faa'iido badan tahay gabadha maaragtaane aan fiicnayn ee mufsidadee fasaadana baa la yidhi kun nin oo mufsidiinay ka fasaad badan tahay baa la yidhi gabadh wanaagsan kun nin oo wanaagsan bay ka wanaag badan tahay iyadu waayo kunka nin ee wanaagsan ilmo keliya ma wanaajin karaan laakiin gabadha wanaagsan hee 10 ciyaaloo wanaagsan bay aqalkeeda ka soo saarayo awliyaa gabadhu hadday xumaatana kun nin bay fasaadin ka soo qaad gabadhu dhar xun hadday xidhatay dariiqa marto waxaa rag magaalada joogoo dhan baa fiirin waka kun nin bay fasaadisay marka ilaahay hanu soo noqono han toobad keenno yaanan xaggiina la nooga soo dhicin laana reer bani israa'iil fidnadii u horreysay waxay ka soo gashay buu nebigu yidhi waa xagga dumarka xaggiina markaa adkeeya oo ilaahay ka baqa oo asturka ku dadaala oo dhulkan aad timaadeenna waa dhul gaaladu ay ku badan tahay ilaahay ha inagu ilaaliye dacwadii khayrka ka shaqeeya allahna inagu anfaco sala allahu calaa nabiyina maxamed